على رسول الله معلمين تشرفت له طبعا قابية شاب برنامج كحلفته كاميرا ماندا أرضيدا عرق كل دوان هوسة يا سراء يا سلام لما أنت كسوق يبقى شيء حلفتنا يبقى يا ميزان كوين وحان مركو ugu rasuulku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan sharafeed kadib waxaan markuu ugu horeyso u mahad celinayaa allaha awoodda leh noo suurta geliyay inay xalfadan maanta noo qabsoonto nasiyayna fursadda maanta aan ugu dabaaldegayno munaasabadda maanta marka xigto waxaan u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada barnaamij xalfadeedka maamuuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 21 November guddigaas oo runtii waqti iyo juhdi bixiyay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan qiimaha leh ee barnaamijkan aad u diyaariseen aad markaa u hergeliseen waan idinkaga mahad celinaynaa sidaas oo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa macallimiinta sharafta leh ee ka howlgala dugsiga Facaweyn hoose dhexe sare ee Salaam oo runtii waqti iyo juhdi ku bixinaya sidii loo barbaarin lahaa ardayda ku abtirsata dugsiga Salaam isla mar ahaantaasna ay u xaqabtiri lahaayeen baahida waxbarasho ee deegaanka taal sidaas oo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiintii hore ee iskoolka ugu soo shaqeyn jiray kuwii hore iyo kuwii dambe dhammaantood intii nool iyo intii dhimatayna Allah yarxamo intii noolna waxaan ilaahay ugu baryayaa awaalkoodii wax u dhigma maalinta qiyaamahana jannatul firdaws insha Allah waxaan sidaas oo kale u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada ku abtirsata dugsiga Salaam qaybaheeda kala duwan iyo shaqaalaha madrasada meel kasto iyo xaalad kasto aad xilligan ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay abaalkiina ilaah baa gudi kara aad baad u mahadsantihiin run ahaantii maalinta macalinka Soomaaliyeed ma ahan wax halkan aan ku soo koobi karo maalintan loo asteeyay 21 November maalinta macalinka Soomaaliyeed waa maalin weyn oo mug weyn waa maalin weyn oo buuraha ka weyn waa maalin weyn oo xusid iyo qadarin mudan waa maalin weyn oo macalinka Soomaaliyeed iyo qoyskiisa caruurtiisa caa'iladiisa iyo familkiisaba loo mahad celin lahaa annaguna maadaama aan qayb ka nahay bahwadaagta waxbarashada gaar ahaan macallimiinta Soomaaliyeed waxaan fursadan iyo munaasabadanba rabaa inaan halkan hambaliyo iyo bogaadin ugu soo jeediyo ayaga iyo familkoodii caailadoodaba hambaliyo waa munaasabada maalintiina waa munaasabada maalinta macalinka la weyneyn lahaa hadiyad la siin lahaa magaciisi la maamuusi lahaa la sharfi lahaa marka ugu horeyso macalinku wuxuu mudan yahay in maalin kastaba iyo meel kastaba lagu maamuuso lagu sharfo lagu ixtiraamo ma ahan maalintan oo kaliya macalinku wuxuu mudan yahay maalin kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta goor kasta iyo goob kastaba in la ixtiraamo la maamuuso la sharfo meel kasta uu geyga Soomaaliya ka jooga ama dunida dacaladeeda uu ka joogo maadaama maanta 21 November loo asteeyay maalinta macalinka Soomaaliyeed ay u tahay maalin gooni ah annaguna waan ku faraxsannahay macallimiinta meel kasta ay joogaanna waxaan leeyahay guuleysta
إلهي أديكم قولي جهدك أي وقتك أكون بحريسان بربارنتا أي وحبارنتا أمة الصومالية مركان معلم لرانو رناهاتي معلمكم وحا إنو صباحايا إنو وحك استياهي معلمكم مركو قريسو والشمع افتيما يا شمع ومركات أركتان وحو افتينينا يا عريريس وحو افتينينا يا dadka kale ayuu ila siinayaa oo wuxuu siinayaa iftiin buu siinayaa laakiin shumaca isagu dhalaalay wuu baaba'aya si tartiib ayuu u baaba'aya marka macallimiintu waad aragtaan badankood waa caatayaan macnuhu ayaga baaba'ay oo cilmigii ayaa baaba'inayo oo waqtigii ayaa baaba'inayo oo waxay ku dadaalayaan inuu soo saaro jiilal isaga ka fiican ama isaga u dhigma macallimiinta abaalkoodii wax lagu gudi karaa ma jiro waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu u hadiyeeyo jannatul firdaws al-aala adduunyadana ixtiraam iyo sharaf iyo nolol wanaagsan inuu ilaahay siiyo oo ay ku noolaadaan isaga iyo caruurtiisa qoyskiisa dhammaanba familkiisa runahaantii madrasada salaam oo la furay sanadugsiyeedkii 2009-2010 oo haatan jirsatay 15 sano maxadaas waxa iska leh Allah awoodda leh ka sakoon waxa iska leh macallimiintii heerarka kala duwan ahaa ee ka soo shaqeeyay oo dhabaha u xirtay waqtigoodii qaaliga ahaa bixiyay waxaan leeyahay macallimiintaas kuwa hadda nala jooga iyo kuwii naga tagay oo daruufaha u saamixi waayay inay nala sii joogaan dhammaantoodba maamulka madrasada wuxuu u hayaa abaal iyo ammaan aan dhammaanayn waxaana u haynaa qiimo sare mar kasta iyo meel kastaba waxaana ugu ducaynaynaa ilaahay inuu maalinta adduunyadana maalinta qiyaamahana inuu jannatul firdaws uu siiyo adduunyadana farxad waarta uu siiyo sidoo kale waxaan halkan hambaliyada kula wadaagayaa sidoo kale ardaydayda qaaliga ah in aad ku jeclahay ee heerarka hoose dhexe iyo sare run ahaantii ardaydaas ayagana waxaan leeyahay dadaalkiina iyo waqtigiina iyo waxbarashadiina ilaahay idinku guuleeyo waxaana waajib idinku ah inaad ixtiraamtaan macallimiintiina waqti kasta iyo meel kastaba waxaan sidaas oo kale halkan ugu mahad celinayaa waanan ka daalaynin inaan mar kasta u mahad celiyo ardayda dufcadda sagaalaad ee sanadugsiyeedkan noo qalin jabinaysa ee fasalka form 4 ama fasalka 12aad oo door firfircoon ka qaatay xalfadan waxaan leeyahay ilaahay imtixaanka soo socda hortiina ha idinku guuleeyo sidaas oo kale ardayda kale oo ayagana qaybta ka ah xalfadan qabanqaabadeeda oo heerarka hoose dhexe iyo saraba ah oo ah form 3 form 2 form 1 sideedaad iyo dhammaanba ardayda qaybahooda kala duwan oo barnaamijkan u kacay diyaariyay xalfadan waxaan leeyahay waxaad maamuusteen macallimiintiina maamuus heer sare waxaad ku maamuusteen ereyo qurxoon oo macaan badan waxaad ku maamuusteen uwax iyo caleemo qoyan waxaad ku maamuusteen soo dhaweyn ballaaran waxaad u sacbatunteen macallimiintiina waxaad niyadda u dhisteen macallimiintiina waxaad kor u qaadeen macallimiintiina taas waxay shidaal siinaysaa macallimiinta inay hore ugu sii socdaan oo moraalkooda ay dhisaan oo ay barbaarin wanaagsan tarbiya wanaagsan idinna siiyaan